munaasabadani oo ahayd mid si heersaro loo soo agaasimay isla markaana lagu xusay 26 Juun oo ahayd maalin ciideena hooyo laga taagay calan ay Soomaaliya leedahay ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka gobolka Banaadir ra'iisul wasaarayaal hore xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya wasiirro ka tirsan xukuumadda iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxaana intii ay munaasabada socotay kooxaha fanaaniinta ee gobolada Waabari iyo gobolada deegaan iyo sidoo kale kooxda ciidamada Baanbeeda ay goobta ku soo bandhigeen heeso ka turjumayay wadaniyada iyo muusikooyin muujinaya astaamaha calanka munaasabada ayaa waxa uu horeyntii ka hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho General Xasan Maxamed Xuseen Mugaab isagoona ummadda Soomaaliyeed ugu hambaliyay munaasabada 26 Juun waxay ku jirtaa asbuuci gobolada badan madaxweyne kaliya caawa oo kaliya madadayno tan laga soo bilaabo 20 bisha ilaa ay ka dhamaato oo xafladii weyneed ee iyadana gobolka koonfureed xorriyadda qaateen iyo midowga labada gobolba bilbiluuleen inuu soo socotaba Muqdisho waxay ku jirtaa asbuuci xorriyadda magaalada dan ayaa caawa dabaaldegayso cid walba gurigeeda ku dabaaldegay calamadii ayaa la sugay derbiyadii iyo xaafadihii iyo guryihii ayaa la cadaynayaa oo cid walba gurigeeda ayay gooreynaysaa dabaaldega marka waa mid magaalada oo dhan maayo sharafta waxaan oo ah in caawa halkaan ay ka dhacayso xafladii Muqdisho nabada waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay wasiirka diinta iyo waqaafta ahna ra'iisul wasaare ku-xigeen Ridwaan Xirsi Maxamed waxa uu dhankiisa ugu hambaliyay ummadda Soomaaliyeed 26 Juun waxa uu sheegay in munaasabada 26 Juun ay ku soo aaday xilli ay dadka mideysneen balse wasiirka ayaa sheegay inay wadaan dib u heshiisiin lagu sameynayo shacabka Soomaaliyeed oo xasuusanaya waqtigan oo kale 1960kii ceelka Hargeysa markii laga taagay calan Soomaaliyeed oo ciid xor ah laga taagay kuwoodii dareenka iyo shucuurka ay habeenka dadkii joogay qabeen iyo qiirada ay lahaayeen iyo ilmada runtii dadku ay imaynayeen waxaa garan kara uun odayaashii maalinta joogay وأبدي أن أقول لها بل أي إسبابك حالة أي وجه المال ضد الصومالية هي حالة حبيب كاتبين إسشعيرك إسشوهيلوك تيردا يلا بحروبي هذه الميسية وضد الصومالية من الجوجان أي حقوا هلال إلى حروبان ugu dambeyntii waxaa munaasabada ka hadlay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka iyo dibadiisa ugu hambaliyay 26 Juun maalinta xorriyadda Soomaaliya waxa uu madaxweynuhu ku sheegay maalintan in ay gaar u tahay ummadda Soomaaliyeed isagoona ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in toddobaadka xorriyadda ay siiyaan ahmiyad gooni ah isla markaana calanka Soomaaliya laga taago guri walba oo qof shacab oo Soomaaliyeed uu ku nool yahay ugu horeysay caalamkan iyo taariikhda ee calan Soomaaliyeed oo xor ah oo dal Soomaaliyeed oo xor ah laga taago waayo marka qof kastoo Soomaali ah meel kasta uu ku nool yahay maanta waxay ka mid tahay taariikhdiisa waxay ka mid tahay sharaftiisa waxay ka mid tahay dadkiisa marka waa inaan maalintaa wada weyneynaa caawana waa farxad weyn inaan magaalada Muqdisho caasimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya isugu nimiday annaga oo xusayna maalintaas weyn waa run dhibaata way dhacday wax badan way naga khaldameen laakiin taas macnaheeda ma aha dhibaatada na gaartay nama gaarsiin karto inaan ilowno taariikhdeena inaan ilowno nama gaarsiin karto maanta oo kale inaan ilowno nama gaarsiin karto wixii dhibaatada gaara waa ka qabanaynaa wax kastoo dhacayna waan ka dhaqmaynaa laakiin